maxaad samaysaa marka uu ku soo maro dareen ah in cadaadis zaa'id uu ku saaran yahay meelaad u dhaqaaqdana aadan garanaynin oo hal meel aad istaag ku noqoto oo ku xanibanto waa dareen dadkoo dhan soo wada mara waxaase lagu kala duwan yahay garashada sirta qaabka loo wajaho dareenkaas isaga ah waxaan uga hadli doonaa kulankeena maanta ee kelmadiisu tahay maareynta walaaca nafta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. yaraanteennii markii aan soo barbaaraynay ayaa waxaana laga ilaaliyay inaan la kulanno ama aan waajahno walaac iyo cadaadis nuucu dooni ha ahaado oo markaan yareen inteena badan waana la koolkooliyay waana la ilaaliyay iyada oo waalidku markaas xujada uu ka dhiganayo caruurkani markuu weynaado ayaa noloshu bari doontaa yani nolosha bari doontaa markuu weynaado arki doonaa saa daraadeed intaan yareen walaaceena laga ilaaliyay markaan soo weynaanay noloshii aan galnay waxaan la kulannay walaac fara badan cadaadis fara badan waana wax caadi ah oo nolosha ku yimaada inta badan cadaadiska marba haddii la nool yahay waa la kulmaya hagaag cadaadis muxuu yahay cadaadisku ama walaaca qofka la soo gudboonaanaya cadaadis ka dhalanaya wuxuu yahay xaalad nafseed oo uu qofku marayo marka uu u taag waayo ama uu u maaran waayo dhinac ka mid ah dhinacyada noloshiisa gurigii iyo guurkii oo kale ganacsigii oo kale waxbarashadii oo kale barbaarintii caruurta xiriirkii dadka kala duwan la lahaa dhinacyadaas oo dhan dhinac ka mid ah markuu qofka u taag waayo oo culays kaga yimaado walaac ayaa ka dhasha walaacaas isaga ah wuxuu leeyahay saddex wax oo asaas u ah ama uu ku taagan yahay waxa koowaad waxay yihiin dhacdada qofkan soo maraysa tijaabada khibrada mowqifka qofkan soo maraya waxa la soo gudboonaanaya kan labaad wuxuu yahay qaabka uu u fahmayo qaabka uu u garanayo garashadiisa iyo fahamkiisa ku aadan mowqifkan iyo dhacdadan soo maray qofkan ka saddexaadina wuxuu yahay falcelinta iyo responsiga istijaabada qofkan uu ka bixinayo siduu uga falcelinayaa siduu ula falgalaya haddii gooraalana cadaadiska iyo walaacu wuxuu ka dhashaa fahanka iyo garashada aan ka yeelano waxa nagu hareereysan iyo dhacdadana soo martay fahankaas ayuuna ku qotomaa had iyo goraale falcelinta aan bixinayno tusaale ahaan laba arday haddaan soo qaadano oo ardayna uu keenay 95 natiijadii imtixaanka ardayna uu keenay 55 natiijadii imtixaanka waxaa laga yaabaa in kii keenay 95 uu isbuusayo oo uu careysan yahay oo uu cadaadis dareemayo iyo walaac amaba uu oynayo leeyahay saa u keenay kan macquul maaha natiijadan way hooseysaa iyo wax la mid ah halka kii 55 keenay uu faraxsan yahay uu boodboodayo ma yeel laga yaabo inuu xaflad sameysanayo ma tahay mise maaha maxay ku kala duwan yihiin marka labaduba waa isla dhacdo isla mowqif natiijo imtixaan soo baxday laakiin garashadii iyo fahamkii laga qaatay natiijadaas macnaheeda lagu kala duwan yahay taas ayaana keentay in falcelintu kala duwanaato ninkan natiijada 50 ka keenay wuxuu u arkaa wax weyn oo ku faraxsan yahay waa natiijo fiican waa sidii la rabay halka kan 95 keenay uu u arko wax hooseeya sidee 100 uga hoos martay inaad 100 ka keentaa waxyaabaha la midka inuu ku fakarayo marka inta badan walaacaas isaga ah intaan banoolnahay oo noloshan ku guda jirnaa waa kiina soo mara waa wax dabiiciya inta badanna walaacaas marxaladda ku xigta ama heerka ku xiga ayaa waxa ku daahsoon xaqiijinta wixii aad rabtay yani marka aad ka talawdaa laga yaabaa ama aad ugu dhowdahay inaad gaarto wixii aad rabto u socotay dad fara badan laakiin halkan sokay ku fashilmaan oo waxay garan waayaan siday u maareyn lahaayeen siday ula dhaqmi lahaayeen walaacan iyo culayskan iyo cadaadiskan soo wajahay noloshooda oo ka dhashay la falgalka nolosha hagaag waxaan marka hadda sheegaynaa 4 fikrad oo aad ku waajihi karto ama kula dhaqmi karto walaaca
fikradda koowaad waxay tahay mar allaale in marka aad dareento in culays ku soo wajahay oo adiga dhan aad walaacayso cadaadis ku saaran yahay aad meeshaada ku barafowday freezing aad ku noqotay oo stack ku noqotay halkaaga aad ku dhigtay dhaqaaq samee hadaad fadhisay istaag hadaad jiiftay soo fariiso hadaad taagnayd dhaqaaq meel u dhaqaaq boodbood wax dhageyso wax kala samee ka dhaxbax xaaladii yani xaalada physiologiyeed waxaad badashaa yani physical state-ka dhaqaaq samee sida dalada xataa sunnada waxaad ku arkaysaa in marka la maareynayo dareemada nooc kamida sida carada oo kale nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam hadii qofkii xanaaqsanay uu fadhiyay hadan giigsado oo ha iskala bixiyo oo resting iyo ha sameeyo nasiino hadii uu taagnaa ha fariisto hadii uu fadhiyo ha istaago oo ha baxo ha soo weyse qaato waxaasoo dhan waa maxay waxaana laga rabaa inaan bedelno physical state-ka ama xaaladda jismaani iyo xaaladda aan ku sugannahay markaas inaan bedelnaan laga rabaa marka waxaa isku daydaa inaad ka baxdo moodka isaga ah waxaa kuu sahlanaysa markaas inaad walaaci hanato oo aad maarayso qodobka labaad wuxuu yahay waxaad isweydiisaa maxaa khayr ah oo nicmo ah oo laga yaabaa inuu ku hoos duugan yahay walaacan isaga ah on rabbigay uga shukriya marka aad marka garato oo tiraahdo la'allahu khayr dhankee khayrka uga jiri kara oo aad baasaysiga iyo fikradda negative-ka ah wanaagsaneyn ee maskaxdaada ka guuxaysa aad u rogto dhanka kale waxa ku dhow inaad gratitude la timaado inaad imtinaan la timaado inaad mahadnaq iyo abaalkahayn nicmooyinka hadda noloshaada ku jira iyo kuwa ku hoos dugnaan kara cadaadiskan ku soo food saarayba aad ka mahad noqdo markaas kaliya ayaad haleeli kartaa xalka isaga wax u xalin lahayd oo uga dhaxbixi lahayd cadaadiskan iyo dhiiqadan aad dhex taalo qodobka saddexaad wuxuu yahay waa maxay talaabta kaliya ee aan qaadi karo hadda waxa laga yaabaa markii qofkan cadaadis uu soo saaro fooda amaba walaac uu la soo gudboonaado in uu ku fakaro 150 shay oo kala duwan oo ka bixin karta wallahi hada lacag hesho wallahi hada hebel la hadasho wallahi hada gurigan ka guurto wallahi hada gaarigaas hesho wallahi hada waxyaabo tira badan oo kulligood taqriiban yani ku dhawaad kulligood ay macnaha u ekaadaan wax adag ama hadda aan la haleeli karin ama hadda aan mutaax ku ahayn available ku ahayn aadan heli karin taas marka waxay keentaa inaad quusato waxaad raadinaysaa hal talaab kaliya laba ma saddex ma hal talaab kaliya insha Allah ha noqoto inaad baxdo oo yani koob latte ah uga soo dhufato kafeega ku dhow bas koob latte ah ku soo dhufato inaad baxdo oo jikada tagto oo wax aad jecesha aad samaysato laakiin iska ilaali wax caafimaadkaaga u roon ha noqdeen yani talaab aan qaadi karaa waa maxay oo ugu horeysa oo igu caawisa in talaabooyinka xiga ee aan uga bixi karo cadaadiskan aan ku talaabsado qodobka afaraad ee ugu dambeeya wuxuu yahay waxaad ogaataa in cadaadisku yahay martidu ma raagto martidu muddo badan qofka lama joogto martidu inta badan khafiif weeye waqti kooban ay joogto waana dhaqaaqdaa laakiin hadaad ku dhagto oo iska laalaadiso oo degdeg ku noqoto ee walaaci isaga aha ama aad tiraahdo suurtagal maahan waxaan say ku dhaceen oo muqaawamo iyo resistance iyo ka hortag iyo diidmo aad kala hortagto waxa dhacaysa inuu ku bato walaaci inuu ku joogo inuu arko maya martinimadii waa ka baxda adiga heerkaad ka mid tahay qolkaanan ku siinay sariirtan adaa iskale ahlan bik welcome soo dhawow inaad leedahay ayuu u maleynaya saadaraadii siisu kugu joogaya waxaad u ogolaataa in dowrka martinimo uu cayaaro walaacan uuna ka tago kadib marka uu ku dhiibo fariintii uu ku waday laga yaabo inay fariintaas tahay waxaad ka gaabisay dhinac hebel waxaad ka gaabisay ilmahaaga waxaad ka gaabisay lamaanka nolosha aad la wadaagayso waxaad ka gaabisay xiriirka aad la lahayd waxaad ka gaabisay raaxadii aad noloshaada siin lahayd iyo waqtiga aad la qaadan lahayd fariinta uu ku wado markaad ka qaadato inaad tiraahdo mahadsanid shukran hore u dhaqaaq garabkaaga Allah galo laakiin aniga intaan ka badan kuma haya meel aan kugu martigeliyo sidaas ayaa la rabaa in loola dhaqmo walaaca sidaas ayaa la rabaa in loo maareeyo loona hanto cadaadiska nolosha soo food saaraya ma ahan inaan diidno ma ahan inaan madaxa xoqonno ma ahan inaan isdabaalino dad fara badan isdabaaliskaasi ku nool yihiin noloshooda ku nool yihiin ma raadinayo xal ma raadinayo caawinaadaad u baahan tahay qof kasta oo tahay caawinaadaad u baahan tahay ha ka kibrin ha ka santaagin dalbo caawinaada isku day inaad dhiiqada ka dhaxbaxdo markas
kasta noloshaadana aad hanato ood barato qaabka aad u maareyn lahayd had iyo gooraale waxaan ogaataa markasta ood isdhaga tirto isdabaaliso noloshaada dhiiqa ayay ku jiri doontaa waxaana laga yaabaa inay haadaan ka sii dhacdo oo ay hog dheer ku dhaxdhacdo mar walbaase adiga weeye qof kale go'aanka bedelidda nolosha.